عليكم أصحابتا كسو دواada channelkayga waa Muna Corner waxaan idin rajeynayaa insha Allah khayr iyo caafimaad meel walba aad joogtaan saa u jeedin waa muuqaalkii ugu horeeyay oo YouTube soo fariisto channelka markii igu horeysay aan soo fariisto marka waxaan idin leeyahay barasho wanaagsan magacayga waa Muna waxaan jeclaaday sanadka cusub insha Allah inaan channelka program cusub ku soo daro oo ah qisooyinka dhacdooyinka runta ah ama true crime story waa wax aad aan u xiiseeyo marka waxaa jeclaaday inaan ku soo daro channelka YouTube wuxuu noqonayaa YouTube channelka laba upload buu lahaanayaa isbuucii laba jeer insha Allah hadduu Ilaahay ii fududeeyo uploadka ugu horeeya ama videoga ugu horeeya wuxuu ahaanayaa mid ku saabsan dietka iyo miisaan dhimista midka labaad wuxuu noqonayaa insha Allah true crime story ama qisooyinka dhacdooyinka runta ah marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka heshiin programkan oo soo dejiyay channelka sidoo kale waxaa leeyahay asxaabta nagu xiran like-kiina iyo share-kiina iyo subscribe-kiina comment-yaashiina quruxda badan waad ku mahadsantihiin jazakumullah khayr meesha aad joogno idinka unbaa maxaad na gaarsiiseen dadka nagu cusubna waxaa leeyahay subscribe dhaha gambaleelka taabta insha Allah waad ka heli doontiin barnaamijyada channelka haddaad jeceshahay miisaan dhimis ama jeceshahay qisooyin dhacdooyin runta labadaba channelka waa ka heleysaa subscribe ka taabo gambaleelka furo kusoo dhawo channelka idinkuma dheeranayo videoga qisada maanta insha Allah qisadayna maanta waxay ku saabsan tahay gabar la dhahayo Skylar Nice waxa waa gabar Mareykan ah waxay dhalatay 1996 magaalada Star oo ku taalo West Virginia aabaheeda waxa la dhahaa Dave hooyadana waxa la dhahaa Marie Nice labadaba laba waalid oo shaqeeyaan bay ahaayeen aabaha wuxuu ka shaqeyn jiray maqaasimaha waaweyn oo Walmart aad bay caan u yihiin habartan waxay ka shaqeyn jirtay xagga caafimaadka Skylar waxay ahayd only child cunugaas kaliya bay qabeen si fiican loo soo koriyay guri aad looga jecel yahay bay ku dhalatay iskoolka way ku fiicneed aad looga jeclaa qof waxay ahayd happy qof oo teenagerada oo aad u dhibka badan ma ahaan Skylar waxay isbarteen iskoolka isku barteen gabar la dhahayo Sheila waxay dhalatay 1995 bilo bay ka weyneed Skylar ayada Skylar aad bay saxaab u ahaayeen iskoolka waa laga ogaa dadkan aad asxaab u ah oo meel walba isla joogaan eheladooda labada ehel way kala yaqaaneen Skylar ehelkeeda iyo Sheila ehelkeeda laba qof oo aad asxaab u ah bay ahaayeen Sheila hadda ka hadalno waxay ahayd gabdhaha oo bad influence bay ku ahayd Skylar ma ahayn gabdhaha oo idin dhahaa yani asxaabnimada yani laba qof markay asxaab noqdaan qofba good influence ku noqonaya ama wax fiican ta'thir fiican ku sameynaya qofkan laakiin Sheila ma ahayn qofkaas waxay qof dhahaan American culture mean girl bay ahayd aad u control badneed mana ahayn dadka iskoolka aad ugu fiican ayagoo asxaab isku laakiin sidaas ayagoo asxaab bay ahaayeen way isjeclaayeen waxaa ku soo darsantay gabar saddexaad la dhahayo Rachel iyo Sheila iyo Skylar saddexdood asxaab aad isku jecel bay ahaayeen meel walba isla joogaan iskoolka waa laga yaqaanaa saddexdaas trio ama thulathi almarix waxa lagu dhaho af carabiga saddexdaas qof meeshuu jooga labada kalena qasab waa inay joogaan ayagoo saas saddexdood isku jecel oo asxaab aad u balse waxaa aad asxaab aad u ahaa ama close aad isku ahaa Rachel iyo Sheila aad bay asxaab u ahaayeen Skylar xoogaa gadaal bay u riixi jireen waxaa la arki jiray marmar Skylar ayadoo dhar qabto Rachel iyo Sheila dhar isku ay qabaan waa la yaqaanaa gabdhaha hadday iskool isla aadayaan ama jaamacad isla bartaan dhar isku wada hadday xiranayaan oo isku wada sheegaan heblo dharkaan xiranayna marka Skylar badanaa looma sheegi jirin Sheila iyo Rachel labadooda waxay ahaayeen gabdhaha oo waxyaabaha cabcaba teenager bay ahaayeen 18 ma gaarin marka meelaha publica kuma cabi karin waxay aadi jireen meelaha luqluqyada ama woodska meelo oo go'an bay aadi jireen ay ku cabi jireen waxyaabaha cabi jireen Skylar marmar way raaci jirtay laakiin lama isaabi jireen marka
Skylar ayagoo saas ah saddexdooda ayagoo asxaab isku ah dadka iskoolka waxaa la dareemi jiray badanaa in Skylar aad loo jeclayn. maalintii bisha ahayd July 5teeda sanadka 2012 Skylar waxay ka shaqayn jirtay makhaayad la dhahayo Wendy's aad ugu faraxsanayd shaqadaas maxaa jira lacag baa kasoo galaysa qof independent bay ahayd marka shaqadii markay kasoo laabatay aabeed hooyadeed u tagtay way salaantay good night bay tiri waa seexanaya albaabkeeda bay xiratay kadib subaxii markii la gaaray aabihii hooyadii way soo kaceen waxay arkeen albaabkeedii wuu xiran yahay ayadiina sooma degan marka waxay isdhaheen waxaa dhici karta inay hurdo la daahday hadhowdii kici doontaa shaqadeed aadi doontaa maxaa jira qofkan waa qof weyn bas shaqadood bay iska aadeen markay shaqada aadeen aabihii duhurkii buu soo laabtay duhurkii markuu soo laabtay wuxuu la ballansanaa ayada inuu maxay ahayd furaha baabuurka siiyo markay iskool ka imaata shaqada si u aado wuxuu imaaday gurigii Skylar ma joogto taleefankiisa qof soo waaci ma leh ayadiina markuu waco qof qabanayo taleefanka ma leh marka abi wuu walwalay aawo Skylar aawayadii buu wacay wuxuu ku dhahay wax Skylar qabar ma ka haysaa maanta isla hadasheen wuu u sheegay marka waxay ku tiri waxba ha walwalin waxaa dhici karta inay asxaabteeda la mashquushay ama taleefanka chargerka ka dhacay marka waxba ha walwalin waqtiga shaqada markay imaato arki doonaa marka aawayadii shaqada way ka soo laabatay aabihii hooyadii ayagoo isla joogaan oo isla gabadhii intee ka baxday goorma soo wici doontaa unba taleefan waxaa soo wacay makhaayadii oo dhahayaan aawo Skylar maanta shaqada ma soo galaysa miyaa way soo daaday taleefankana ma qabanayso marka aabihii hooyadii halkan qaracan baa ku dhacay gabadhii intee ka baxday aabihii wuu baxay qolkeedii markuu aaday wuxuu arkay qolkii hoos ka xiran markuu qolkii furay xoog uu ku furay banaanka wuxuu arkay gambar yar oo dariishadeeda hoos yaalo wuxuu arkay qolkii qofku ma jiro dariishada hoosteedana gambar baa yaalo daahiyada oo maxaahada sitaarada oo maxaahada qolka dariishadana saas baa loo leexiyay sida camal inuu qof ka baxay dariishada oo gambarkaas ku degtay ama inuu qof ka baxay ama inuu qof u soo galay marka aabihii markaa halkaas wuu walwalay taleefan buu askarta u diray intuu taleefanka askarta u dirin wuxuu wacay asxaabteedii markuu wacay waxay dhahday Sheila ahayd qof ugu horeeyay wacay waxay ku dhahay ma aragtay Skylar ma kula soo hadashay marka waxay ku tiri maya islamaana hadlin laakiin haddii la soo hadasho waa kuu soo sheegaya kuwii kale asxaabteeda kale buu wacay Rachel hadhiin gabdho kale kulli qof dhahay waa aragnay malaha kulli waxay dhaheen Skylar shalay noogu dambeysay haddayna soo wacdo waa kuu soo sheegaynaa aabihii markuu saas u walwalay askartii buu wacay askartii markay waceen ay arkeen gurigii maxay ahayd dariishada hoosteeda gambarka yaalo waxay dhaheen waxaa dhici karta qofkan qof cararay inay tahay ama maxay ahayd qof dhuntay marka wax dhiba lagama yaabo maxay ahayd inuu qabsaday mana aha ilmo yar oo looga cabsanaa in la dafay marka aabihii wuxuu xanaaqay wuxuu dhahay maxaa dhacay maxaa cararsiinaya qofkan qof maxay ahayd wax dhib haystay ma lahayn xalan markii noogu dambeysana qof waxay ahayd aad habi u ah marka halkaas aabihii hooyadii qaracan baa ku soo dhacay gabadhiin maxay ahayd meel kuma hayaan askartiina ma rabaan inay wax ka qabtaan marka Sheila iyo maxay ahayd gabdhihii kale asxaabteedii ahaayeen markastaba ay wacaan ay weydiiyaan waxba qabaar kama hayaan markii dambe Sheila habartu soo wacday waxay ku tiri naga raali ahaada waxba idinka qarinay xalay anaka maxay u imaanay aniga Rachel baa u imaanay Sheila oo ayadoo rabin inayna raacdo waxaa ku dhahanay soo bax xoogaa nala soo wareeg nala soo caweey camal wayna raacday way ka soo degatay maxay ahayd dariishada ka soo baxday geedka gambarka yar ayada ku soo degatay wayna raacday xoogaa baa soo wareegnay magaalada ku soo wareegnay waxyaabaha soo cabnay kadib waa soo noqnay guriga 6 saac inta la gaarin baa guriga u soo celinay shaaraca xaafada afkeeda intuu guriga u dhaweyn aan ku soo dejinay sidayna noo arkin baabuurkeen aan ku dejinayna markaas aan ugu dambeysay Skylar marka aabihii hooyadii waxay sameeyeen waxyaabo maxay flyer sawiradeedii bay soo daabaceen dadkii bay ku wareejiyeen Facebookii meel walba maxay ahayd baafis baa gabadhii lagu baafiyay meel walba ay ka maxay ahayd ka gaaraan kadib maxay ahayd askartii bay haddana ku noqdeen askartii waxay dhaheen waa yahay waxa fiirinaynaa maxay ahayd kaamiraadka oo muraaqabada oo maxay ahayd cimaarada meesha guriga ay degan yihiin kaamiraad u dhow ama ku taalo maxay fiirinaynaa qofkii maxay ahayd wixii meesha ka dhacay kaamiraadkii markay fiiriyeen kaamiraadka waxa u soo baxay Skylar oo ka soo baxaysa qolkeeda chiefka oo dariishada ka soo baxayso
oo baabuur galayso. baabuurkii kaamirada aad bayaan uma ahaan, maxay ahayd baabuurkii waa la garan waayey, laakiin waxaa la arkay in maxay ahayd qofna inuusan dafin, waxna maxay ahayd lagu sameynin, kaskeeda iyo iskeeda ayadoo socoto bay baabuurka lugaheeda ku gashay. marka waxay askarta ay dhahayeen qofkan qof la dafay ma aha, qof ayada iska carartay waaye. marka aabihii hooyadii weliba waxaas hadalkaas ma marin, maxaa jirta gabadhooda way yaqaanaan qof cararaay guriga ka cararaay ma aha. marka baafiskan bay iska wadeen gabadhii asxaabaheeda maxay Sheila iyo Rachel kulli waa la raadinayaan, sawiradii la baafinaya, meel walba la geynaya, social media ay kusoo qorqorayaan, Sheila kusoo qorqoraysa Twitter, social mediaha. Skylar intee ka baxday, qofkii arka Skylar ha noo soo sheego. sawiradii iyo wixii sidii loo baafinayay mar walba askartii maxay ahayd waxna akhbaar ma hayso. sawirkan baa la hayaa oo maxay ahayd baabuurkan oo la garanaynin, calaamadna laga haynin, wuxuu yahana la aqoonin. marka maxay ahayd waxay isdhaheen ahelkeedii in qofkan maxay ahayd baabuurka markay fuushay ama la dafay ama qof maxay ahayd wax xun ku sameeyay. marka hooyadii aabihii qaraacankii uu ku sii weynaaday. raadinayay gabadhii day after day, week after week, wax akhbaar cusub ma laha. askartii wax way soo qaban waayeen maxay ahayd akhbaar oo maxay ahayd ama daliil gabadhii meel ka baxday ama meel ay martay, wax soo kusoo cusboonaaday qadiyadda ma laha. sidii loo raadinayay markii dambe askartii waxay ka shakiyeen labadii gabdhood inay qof yani wax inay qarinayaan camal ama sir ay qarinayaan. marka waxay yeeleen sawirkii maxay ahayd oo la arkaya gabadhii baabuurka galayso, sawirkii ay u noqdeen waxay ku sameeyeen hawlay ku qabteen. maxaa jira sawirka aad uma muuqan, baabuurka lama garanayn. sidii hawsha ugu wadeen markii dambe waxaa la gartay baabuurka ay galaysa gabadha baabuurka inuu ahaa Sheila saaxiibteeda. marka 12 saac iyo bar ama 6 saac iyo bar habeenkii baabuurka ay ugu dambeysay ay galaysa Skylar wuxuu ahaa baabuurka Sheila. ayadana markii hore maxay tiri anakaa wadnay Skylar, waxaa geynay banaankaas kusoo wareegnay, marka waxaad kusoo celinay baabuurka, waxaa ku dejinay xaafadda afkeeda, guriga agtiisa kuma naadejin. marka maxay been u sheegaysaa? been haddii sheegtay wax bay qarinaysaa. marka askartu waxay yeeleen waxay raadiyeen isla habeenkii laftarkiisa taleefanadoodii meeshii ay ugu dambeysay. qofku wuxuu soo qabanayaa taleefanka meesha uu soo maray, ateenada waxay soo qabanaysaa qofka meeshuu soo maray. marka taleefanka wuxuu soo qabtay ateenada meeshay sheegeen inay aadeen ma aha, meel kale inay aadeen soo qabatay, magaalo la dhahay Blacksville. meeshaasna mayna soo sheegin, waxay dhaheen anaka meelo kale aadnay oo maxay ahayd kusoo caweynay waa soo noqonay. marka laba wax oo beena ama red flag oo maxay ahayd oo kusoo baxay labada gabdhood. maxaa jira wax beena way sheegeen, baabuurkii u dambeeyeen ay gabadha galaysay ayadoo nool wuxuu ahaa baabuurkii saaxiibteeda Sheila, laakiin way qarisay, askarta ma u sheegin maxaa dhacay. marka waxaa la arkay askartii labadan gabdhood markay ka shakiyeen waxay dhaheen pressureka ku badinaynaa, isla markiina maxay ahayd aada u muraaqabeynayna. waxaa la dareemay dadka kale xataa waxay dareemeen ma aha askarta kaliya inay Rachel xoogaa nervous noqotay oo depression camal galayso, oo mar walbaba maxay xanaaqsan tahay, murugaysan tahay, iskoolka iyadoo joogta maxay ahayd wax cabsanaya camal. markii lagu soo qaado gabadhii saaxiibta yani way naxnaxaysaa, way baqaysaa. marka dadkii way ka shakiyeen. askarta markii dambe waxay yeeleen mar walba waxay yeeli jireen, u yeeri jireen labada gabdhood, way weydiin jireen maxaa ay qisada maxaa see tahay say ahayd. mar walba askarta way ku celcelinaysaa siday u aragto. labada gabdhood qisadooda waxay ahayd hal qiso camal, qof hal qof inuu sheegay camal, wax ka bedelnaa male. labada qiso isku mid bay ahayd, wax ka bedelan ma laha. yani xataa waxa run hadduu yahay wax un baa ka bedelnaan kara, laakiin waxay ahayd wax qiso camal lasoo xafiday camal oo maxay ahayd labadooda ay ku heshiiyeen inay dhahaan. marka mar walba qisadii wax iska bedelaya ma lahayn. markii dambe waxay u yeereen Rachel. markii Rachel u yeereen waxay dhaheen maalin waxay dareemeen xoogaa inay ayada ay soo jilcday ama ay ka jilcantahay gabadhan kale Sheila way adkeed, qof waxay ahayd oo maxay ahayd yani oo baqaynin oo mujrimad camal ah oo yani cabsina kuma jirin. marka mar walbaba maxay ahayd social media waxay soo dhigi jirtay rest in peace Skylar, rest in peace maaha I hope you are okay Skylar, iyo waxyaabo Skylar intay ka baxday waxyaabahaas camal soo dhigi jirtay maxay ahayd social media. laakiin gabadhan oo maxay ahayd Rachel
magaceeda dhanba ma soo qaadaynin mana hadalkeedana ma lagu soo qaadi karin way qof yacni waxay ahayd camal ka cararaya arrinta dhan ka cararaya shiila way bixi jirtay habartay aadi jirtay la raadin jirtay waraaqadaha flyerka sawiradeeda bay wareejin jirtay hooyadeeday ku ag ooyin jirtay laakiin Rachel inay taqaanay gabadha camal maba ahaynba way maxay ahayd siiradeeda camal oo maxay ama hadalkeeda dhanba way goysay marka yaamii ugu dambeysay waxaa la dareemay Rachel xoogaa inay nervous inay noqotay oo depression gashay oo maxay mar walba ay baqbaqayso oo dabeecadaheeda isbedeleen xataa reerkeeda aad ay uga yaabeen marka askartii baa u yeereen markay u yeereen waa la weydiiyey waxaa la dhahay maalintii waxaana dhahdeen meeshaas aadeen laakiin taleefanadiina waxay soo qabatay meel kale inaad joogteen marka ahaa waxay tiri haa way bedeshay hadalkii waxay tiri haa anaka meeshaas anaka u socon rabno aadi rabno Skylar baan dhahday meeshaas aada marka meeshaas tagnana Skylar baa waxayna tiri waynaga hartay waxay tiri ma idin raacayo meeshaan aad joogaya waa ka soo tagnay marka hadalkii sheekadii way isbedelay Sheila loo tagay ayadana waa la weydiiyey maxaa saan maxaa ka jira saan ayadana sheekadii way bedeshay maxaa jira dhe isbedelkii hadalkii ay tan tiri ay tan hadalkii way bedeshay marka labadii sheeko way isbedeshay askartiina aad ay uga shakiyeen labadan gabdhood maxaa jira dhe baabuurkiina maxaa maysa sheegin baabuurkii iyo labadii meel ay sheegayeen inay aadeen waxyaabo badan iska khilaafay marka waxay sameeyeen ayaamihii ugu dambeysay Rachel hadana mar labaad soo celiyeen mar walba markii la joogo cabaarba way soo askartu u yeeri jireen Rachel ayaamihii ugu dambeeyay waxay ahayd qof oo aad break down yani maxay ahaado ayada dhan nafsiya ku kacday maxay ahaado way qaylinaysaa way la dagaalaysaa reerkeedii markii ugu dambeeyay loo yeeray aabaheedii iyo hooyadeedii markay soo wadeen meesha keeneen askari ugu horeeyay oo ka soo horbaxay Rachel waxay ku tiri waa dilnay marka askariga wuxuu dhahay maxaa tiri annagaa dilnay we stabbed her يعني وأتوريا قلنا توريدا كدلنا مركا أسكري وحو كلها محاد عاي شيء هذا الكيبو ويدي وحي كتري معناتي أن هبينكي سكايلر أنا كالله ظلني وحاكو لهني أن صباح نراع أن هبين كان له سوري أيضا ويدي دنيد بويري لكن ويتر أي تري مر بين إن الراع لكن أنا كاكو قصبني وحدانا وهل كان هبين نراع أن وحبا مصداها إنه مركا وي وضعين markay wadeen waxay aadeen meeshaas magaalada Blacksfield markay aadeen meel geeda bay aadeen dadkan gabadha ayada Sheila baabuurkeeda lagu waday marka gabadha maxay ahayd way u qorsheysneed inay gabadhan dilaan muddo 3 bilood ka hor ay qorsheynayeen gabadhan inay kawka siiyaan marka way wadeen markii meeshii geedaha ay tageen waxay dhahayn waxba meesha ku cabeynaa markay soo degteen labadoodii Sheila iyo Rachel soo degateen Sheilana ka soo dabatay waxa soo degatay Skylar marka waxay ku dhaheen waxa soo ilownay jansigarkii ama walaacadii ama lighterkii baabuurka bax nooga keen markay saan u wareegsatay waxay la soo baxeen midiyo ay ku wateen maxay ahaado fanaanadaha hoostooda markaasay mididii bay gabadhii geliyeen gabadhii naxday qaylo maxay ahaado dagaal ayadii maxay ahayd inta ka bax inta soo qabatay markii dambe labadoodii baa ka xoog badiyeen midida markii galiyeen waxay ku dhahdeen why bay tiri gabadhii marka mididii si fiican waxa u galisay Sheila waxay damacday gabadhii inay cararto Sheila soo qabatay mididii bay si fiican u galisay kaw markii ka siisay maxay ahayd waxay yeeleen gabadhii waxay wateen baabuurkooda waxay ku wateen shovel ama maxay bahasha oo lagu ciida lagu maxay marka qofka la duugay ciida lagu qaado shovel ama majrafa ay wateen waxay wateen dhar cusub waxay wateen maxay ahaado bleach waxay wateen bleach oo maxay iskaga dhaqaan dhiigeeda marka nasiib daradooda meesha ay ku dileen gabadha meel waxay dhagaxaan badan marka ma ku duugi karin marka waxay yeeleen meel bay dhinac bay u jiideen jismigeeda waxay ku maxay ahaado ku qariyaan maxay ahaado dhagax iyo maxay ahaado waxyaabo wasakh meesha yaalay ku dabooleen ayagana meeshii maxay markii iskaga bedeleen iskaga nadiifiyeen way baxeen waxba inay sameeyeen amal meeshadii bay u laabteen marka askari wuxuu dhahay maxaad u yeesheen maxaa sabab u ah markaas waxay tiri Skylar waxayna aragtay aniga iyo Sheila oo wax xun sameynayno
يعني markeen aragto waxaas anagoo sameynayno way xanaaqday markeen ugu xanaaqday waxay tiri waxaas oo kale maxaa ka wadiin camal marka waxaa ku dhahanay qof ha u sheegin qofna ha u sheegin hana maxay hadlin marka waxaa dareenay maalintii ugu dambeeyay Twitter bay soo qortay Skylar Twitterka waxay ku soo qortay yani waxaad sameyseen aniga maxay ahayd ma adkeysan kari waxaas camal ku soo qortay Twitter marka waxay dhahayn markaas Sheila waxay dhahday gabadhan waa inay dhimataa maxaa jira hadday maxay sii joogto waa inay sii fashilinaysaa oo sii fadeexaynaysaa marka waxaa la dhahay Rachel waxaa lagu dhahay askartii waxay ku dhaheen kaaleyna tus meesha aad ku duugteen gabadha way geysay askartii cunugta maxay jirkeedii maxay waxay remaining jirkii iyo waxyaabihii baadigii baa markii la soo helay waa la hubsaday taxliil baa lagu sameeyay waxay noqotay ficlan waa gabadhii ay raadinayeen kadib waxay damceen markii dambe waxay arkeen Rachel markii اعترaaftay waxaa dhimanayd Sheila Rachel oo kale ma ahaan qof adag bay ahayd marka waxay dhaheen baabuurkii ay heleen waxay istaan evidence daliil ahaan baabuurkii ay heleen iyo maxay ahayd shahaadadii gabadhan Rachel waa la baxay Sheila waa la soo qabtay markii la soo qabtay ayadoo meel maxay maqaayad ka soo baxday markii la soo qabtay maxay loo sheegay markii hore way inkirtay inay wax sameeyeen camal markii dambe la tusay baabuurka inuu yahay baabuurkeedii baabuurkiina maxay markii la buufiyay waxaa la arkay dhiigii gabadhii maxay markii meesha ku dilaayeen baabuurku u dhawaa markii dhiigii gabadhii laga helay marka labadii gabdhood waa la xukumay markii lagu xukumay maxkamadda baa la geeyay aabihii aad uga xanaaqay maxkamadda hadda YouTube ka arki kartiin maxay ka fiirsan kartiin online Google hadda ka raadisiin يعني maxaa sababa maxaa u disheen gabadhan waxay dhahdeen we just didn't like her يعني ma najeclaan يعني maxaa wax sabab lala yaabay ahayn labadan gabdhood oo teenagerada oo 16 jirada ah oo maxaa ahaado gabadhan nafta kow ka siiyeen oo sabab la'aan ah marka waxa dhacday waa lagu xukumay mid walba sijinka markii lagu xukumay waxay damceen in lagu xukumo ahaan axdaaf ama maxay dad yar yar camal laakiin maxkamaddu way ka diiday sida dad waaweyn camal baa loo xukumay marka waxaas yani sheekadaas runtii marka akhriyay yani sheeko ka naxay bay ahayd aabihii iyo hooyadii maxay ahayd Skylar Nies hooyadii aabihii waxay maxay ahayd ku dadaaleen qaynuunka in laga bedelo markii la waayo ilmo oo maxay 18 ka hooseeyo in maxay ahayd isla markiiba la raadiyo oo la dhihin yani qaynuunka bay wax ka bedeleen sidoo kale labadii ilaa hadda sijinka bay ku jiraan sawiradooda waa idin soo dhigi doonaa marka qisadan maxaa laga istifiidaa runtii marka waxaan ahay dad muslimiin ah qisa markaas oo kale u maqalno yani in wax laga istifiidaa fiican waxa laga istifiidaa koow hooyo hadaa tahay oo gabar haysatid gabadhaada koow adiga saaxiib la aho يعني حتى أصحابتها إنها برتد وهذا برتد حتى أديك صحابتها أوجا لو هانين قف هذا أي مركي قلت سميسو أي كبقيسو هذا قبلان هذا مركي قلت قلت كي قبلها سميان هو إذا هدي أمان لهذا وشيء لهذا تويتر هذا سكر لهن وحنكم مرجع لهن لكن تاسع جرته مثل الأراد ولا استفيدة وحاواي مرمر الصحابة كل الصعوبة أما ده كان إسلام هاي best friend بانا هاي متقاعد وحون يدي سقف كان يهجرته ده وحاجة إسكاك على الصعوبة يعني كل الصعوبة لكن قلوبه هذا كم جعله يعني قلوبه لها الضالع لكن قلبه هذا كم جعله لكن إسكاك على الصعوبة يعني وأبيه مركي قدام بيسؤول هاي يعني حاول الشين قبل إذا هدينا جعلان إسكا دافع قف إذا كو قصبي ملها مركا وحارجينا إن شاء الله قصة معناتها إنها كهشين أصحابتنا لو ذاك فيديوغا لايك شير سبسكرايب كإيجا إلابنا جنبرين كتابته مركا واحد صب هرق صور ديو مركا إن شاء الله وحارجينا إنها كهشين غير إذين رجينا هذي ونكسن